waxaa si habsami leh magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose kaga soconaya garoon diyaaradeedka degmada oo ay si iscilqaan isaga kaashanayaan bulshada magaalada iyo qurba joogta. Maalmihii ugu dambeeyay garoonka ayaa laga qabtay shaqadii ugu badneed, waxaana hadda muuqata rajo wanaagsan taas oo muujinaysa sida ay bulshadu kaga go'an tahay hirgelinta garoonkan. Geedihii ugu badnaa ayaa laga baneeyay maalmihii aynu soo dhaafnay, waana mid ka duwan maanta sida uu ahaa bilowga. Maxamed Sheekh Xasan, gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada marka ahna taliyaha NISA, ayaa ah dhiirigeliyaha ugu weyn ee hormuudka u ah habsami u socodka shaqada. Qurba joogta ku aftirsada magaalada marka, gaar ahaan qurba joogta UK oo wadajir muujiyay ayaa dhankooda kaalin muuqata qaatay. Qaar ka mid ah dadkii hawsha garoonka waday ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay qurba joogta waddankaas, waxaana ay sheegeen in hawshu ay badan tahay, sidoo kalena weli ay sugayaan kaalinta qurba joogta kale ee magaalada ku aftirsada. waxa weeye garoonka lagu talagalay degmada marka in oo loo dhiso kaasoo ku bilowday si isxilqaan ah ama dhalinyaro iyadu isku soo xilqaantay. waxaan codsanayaa cid kasta oo waxgarada meesha waxa weeye magaaladan go'doon weeye, wax yimaadaan ma jiraan, bad iyo biriba nimanka nabadiidka ah naga xiray. waxaan doonaynaa cid kasta oo waxgarada inay nagala qayb qaataan, khaasatan qurba joogta u dhashay deegaanka marka intii awal kaalinta qaadatay oo wax bixisay sida qurba joogta UK oo kale waa mahadsan yihiin. inta dambe ama gobol kasta ay joogaan waxa weeye dal dadkiisa dhista, walaalayaal nagala qayb qaata. waxa weeye koow ma joogto waa u jeedaan hadda geedii baa la bixiyay, waxaa dhiman caradii baa dhiman, shaygii baa dhiman, dhismihii baa dhiman. walaalayaal nagala qayb qaata. waxa weeye inaanu tabartayada ku tashanaana go'aansanay. hadda waa aragtaan inta uu marayo quraanjo u dhow waxa la muluc waa jiidaa. waxa weeye haddii aan isku tashanno wax walba suurtagelaya. aad ogtihiin maalintii la bilaabay meeshaan waxay ahayd meel duur ah oo hawd ah. hadda maantana aniga shakhsi ahaantay sidaan aaminsanahay saambay ay garoon caadi ku tahayba. run ahaantii waxa intaan lagu gaarsiiyaa waxay tahay isxilqaan iyo isku tashi. marka waxaan rabnaa dadka qurba joogta jaalidaha ku aftirsada gobolka Shabeellaha Hoose ama degmada marka inta dhiman inay nala qayb qaataan oo sida ay haddaba gacan noo soo siiyeen ay mar kastaba gacan noo siiyaan. waa ognahay heerkan iyo horumarkan Semberi waxaana gaarsiiyay waa idinka haddana ha naga harnin. maanta rajada aad bay wanaagsan tahay, wayna fiican tahay. shalay iyo maanta rajada wanaagsan tahay. kulley sidaan rajayhayna berri iyo maanta berri haddana ay fiicnaa doonto hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan u sheegaynaa dadka walaalaha oo aan ku tashanay inaanu garoon yeelano oo bilowno inaanu horta cadayno wixii aanu qabanay iyo wixii aanu dalaganka u tareemicnay xaqaan ahaan anagoo waxba haynin, mid maskax keena iyo mid dhul bixiya iyo mid lacag soo dira wixii aanu isu geysanay meesha inoo maray horta inaanu idin sheegnaan maanta meesha u nimid. dhulkii shalay duurka ahaa oo nu galay walaalayaal waa dhulka maanta lagu tashan karo ee wax la gashan karo. inaad ogaataan meesha aanu idin sheegay shalay inay garoon noo noqonayso wixii laga qabtay oo lacagtii la helay ee soo dirteen lagu qabtay horta wataas waan dhex taaganaa walaalayaal, indhihiina adin macalina waad arkaysaan. midda labaad walaalaha qurba joogta oo ugu horeeyaan qurba joogta UK walaalayaal waxaan idin leenahay shalay idinka wax bixiyay, maantana inaydaan dhihin shalay baanu wax bixinay baritan socotaad ku darastaan oo shaqadii aad nala wadaan way waanta bartakay maraysaa shaqadii ma dhamaystira. waxa kaloo walaalayaal aanu u mahadcelinayaa oo si weyn garoonka gacan libax uga geystay taliyaheena Maxamed Sheekh Ilaahay khayr siiyo oo amnigiisa iyo wax walba ka dhameystiray. kalsooni noo siiyay anaga dhalinyarada maanta inaan halkaas u gaarsiino. Ilaahay khayr siiyo dadaalaya aad iyo aad u dadaalaya inaynu marka is ogaana deegaan intaynu nahay walaalayaal oo lagu tashado magaaladan sidii ay uga bixi lahayd go'doonka ay ku hayaan nimanka nabadiidka ay u diideen bilicdii magaalada markay caasimaddu inay soo noqoto. inaynu walaalayaal dalka qofkiilaba u tashada inaynu u tashano dalkeena. waxba inuu bilowno wixii aanu bilowno dhexda kaga tagnana ceeb bay nagu tahay. bilowgii aanu bilownay iyo hamigii aanu gaarnay inaynu ka meel gaarnaan rabnaa.
garoonkan ayaa haddii uu dhismo noqon doona mid faa'iido fara badan kusoo kordhiya degmada oo wajahaysa go'doon cirka iyo dhulka, taas oo sababtay in maciishadu sare u kacdo iyadoo lagu jiro waqti abaaro, magaaladana ay ku nool yihiin barakacyaal fara badan oo dhankooda u baahan gargaar, balse ma jirto meel loo soo marsiiyo. Dadka raba in ay magaaladu yimaadaan oo ay u soo dalxiis tagaan ayaa ku qasban in ay galaan safar badda ah, taas oo ah halis weyn oo ay horay ku geeriyoodeen dad fara badan kadib markii ay la qallimatay doontii ay saarnaayeen. Dhanka kale, weli waxaa maqan kaalinta dowladda, gaar ahaan mas-uuliyiinta magaalada marka ku matala dowladda federaalka iyo koonfur galbeed, walow maamulka gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan guddoomiyaha gobolka ballan qaaday in maamulka iyo shacabka la isaga kaashan doono dhismaha garoonka iyo hirgelintiisa. Aweys Muumin Xasan, Aweys OK, warbaahinta dowlad goboleedka koonfur galbeed, gobolka Shabeellaha Hoose.